السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. معلم وناكسن اسكو سو نقد وناكسن maanta waxaynu qaadan doonaa maadadayna aynu ku balansanaynayd medical bristology taasoo codadkiina u batay muuqaalkii ugu dambeeyay aynu ku soo afmeerinay maadada pharmacology-ga muuqaalkii ugu dambeeyay ee ahaa maadada pharmacology-ga gabagabeynteedii aynu kaga hadlaynay antihypertensive drugs-ka codayntii aynu ku sameynay waxaad ku doorateen ama inta badan ba aad u badateen inaynu bilowno maadada tani ee medical bristology-ga hadaba maantadani waxaynu go'aansanay inaynu maadadani bilowno qaadana casharkeena koowaad sanadka kan 2024 koorsada ugu horeysa ama casharka ugu horeeya inuu channelka kan ku bixin doono waxa uu noqon doonaa medical bristology-ga qodobada casharkeena maanta inuu ku baran doono waxay noqon doontaa in aynu ka hadalno afar qodob waxay noqon doontaa qodobka koowaad waxaynu si guud uga hadli doonaa introduction ka bixin doonaa maadada tan ee bristology-ga waxa ay tahay faham guud aynu ka bixin doonaa insha Allah qodobka labaad waxa uu noqon doonaa inaynu in badan kaga hadalno waa maxay markaynu ka hadlayno bristology-ga laamaha loo kala qaybiyo ama brancheskeeda qodobka saddexaad waxa uu noqon doonaa parasite-ka maxaa loo qaybiyaa ama classification of parasite-ka aynu ka hadli doonaa ugu dambeyn qodobka aynu ku soo gabagabeyn doono waxa uu noqon doonaa ereyada common-ka ah ee la xiriira inta badan lagu isticmaalo marka aynu ku jirno maadada tani ee loo yaqaano bristology-ga ama parasitology sida qof walba uu yaqaano waxaan rajay doonaa ilaa dhamaadka casharkani muuqaalka kani ay la gaari doontaan insha Allah ugu horeyn sida balantaba inoo ahayd muuqaalkani waxa uu noqon doonaa casharkeeni koowaad aynu ku bilowno marka qodobka koowaad aynu ku soo sheegnay qaybtii hore hordhaca casharkeena qaybtaas oo ah waa maxay introduction-ka ay yeelan karto ama bristology aynu xog badan ka sheegno marka ugu horeyso maadada tan ee loo yaqaan parasitology waxa lagu bartaa sideedaba parasite-ka waa the study of parasite sida aad ka arki kartid ereyga ama waxa uu ka bilowdo marka la fiiriyo maadada tan ee ah parasitology waa parasite oo ah parasite-kii ama dulankii logi oo iyada noqon doonto study-gii marka kaliya kuma koobna barashada marka laga hadlayo parasitology in ay tahay barashada parasite-ka wax kale ayaa soo galay marka qeexideeda iyo ereygaas meeshuu ka yimid halkan aynu ku bayaanino ugu horeyntii ereyga waxa uu ka yimid luqadda Greek ereyga luqadda Greek ahaanta uu kaga yimid waxa loo yaqaanaa parasitos kaasoo u kala baxa marka para iyo cytos bara waxa loo jeedaa marka aynu ka hadlayno grain halka cytos-kana uu noqon doono marka English laga dhigo food labadooda marka la isku qabto marka waxay noqon doontaa grain food oo ah cuntada xabuubta sida qamadiga digirta waxyaabahaasi ayaa soo gala marka anaga markaynu maad ahaan u baranayno sida looma sheegi karo hadda ereyga origin-kiisa baynu sheegaynaa inuu Greek ka yimid erey ahaan uu parasitos ahaa marka la kala qaybiyana labadan ay u kala baxaan hadda marka qeexida toosan ay leedahay parasitology aynu ka hadalno parasitology markaynu ka hadlayno waxa loo yaqaanaa inay tahay waa study is a study of parasite waa mid asalka ah in lagu barto parasite kaliya parasite in ku baranayna maya waxa kale lagu baran doonaa it is host oo ah martigiliyaha iyo parasite kaliya miyaan ku baranayna maya waxa kale lagu baran doonaa relationship-ka ka dhaxeeya labadaani iyo relationship between them waxaynu kala baran doonaa xiriirka ka dhaxeeya labadaani okay parasitology waa maado aynu ku baran doono parasite oo hadir isku noolihii iyo martigiliyihii oo hostigii ah iyo xiriirka ka dhaxeeya martigiliyaha iyo parasite-kaba hostiga waxa uu noqon karaa marka ama xayawaan ama bini aadan ayuu noqon karaa halka parasite-kana noocyada u kala baxo iyo classification-kiisa ama wax parasite loo jeedaba aynu si goonaha ugu tagi doono balse parasite markaynu ka hadlayno naftirkeeda waxay leedahay qeexid waa maxay parasite maanta dhan parasite in daldaleenay waa maxay parasite haddaynu qeexno iyadana waxa weeye parasite is an organism waan markaynu ka hadlayno noole that lives kaasoo ku nool in a host martigiliye ha noqdo xayawaan ama bini aadan ama haddii kartaa waa noole ku nool bini aadan iyo xayawaan kaasoo marka haddana ka quuto and feeds from the host waxa uuna ka quutaa ama cuntadiisaba uu ka helaa martigiliyihii ha noqdo bini aadankii ama kii ha noqdo marka noolaha ku dhex noolaada bini aadamka
ama inta badanna ama xayawaanada hadduu ku dhex noolaanada ka quuta waxyaabaha ay cunaan ama nutrientskooda waxaa loo yaqaanaa parasite. Introduction qaybteeda hore waxaan filayaa inaan si fiican isla fahanay. Hadda waxaynu u gudbi karnaa marka qaybta labaad. Qodobka labaad aynu sii galno markaan. Qodobka koowaad hadaynu soo fahanay, qodobkeena labaad maanta waxaynu ku qaadan doonaa inaynu barano laamaha uu u kala baxo maadada tan loo yaqaano parasitology-ga. Parasitology-ga waxay u kala baxdaa ilaa iyo 4 laamood. 4 laamood kaliya ma ku kooban tahay maya, different fields ay leedahay ama waxay leedahay goobo kala duwan ama branchiyo kala duwan ay leedahay, laakiin anaga waxaynu ku soo koobaynaa 4taasi laamood. 4 laamood mid ka mid ah anaga ayaynu baran doono oo maadadeen ay noqon doontaa oo koorsada aynu ku bixin doono, kuwa kalena waa kuwa soo hoosgala maadada tan. Okay, 4 loo qaybiyo oo anaga aynu soo qaadanin waxaa ka mid ah midka ugu horeysa waxa uu noqon doonaa medical parasitology. waana midka aynu doonayno inaynu koorsada tani dhammaan ku bixino. halka midka labaad uu noqon doono veterinary parasitology. veterinary parasitology. midka saddexaad waxa uu noqon doonaa marka laga hadlo parasite ecology. kan afraad wuxuu noqon doonaa structural parasitology. structural parasitology. 4 laamood marka laanta koowaad ee ah medical parasitology maxaa lagu baranayaa? iyada waxaynu ku baran doonaa cudurrada, waxyaabaha ay keenaan, symptomska, waxyaabahaasi ayaynu ku baran doonaa. halka veterinary parasitology markaynu ka hadlayno iyadana lagu baran doono xayawaanada ama xoolaha marka uu ku dhaco. parasitology-ga noocaasi marka la baranayo waxaa loo yaqaanaa veterinary parasitology. Okay, parasite ecology markaynu ka hadlayno midda koowaad bini'aadamka iyo xayawaanada waa ay ku wada jiraan, waan laga heli karaa inta badan inkastoo uu khuseeyo aadanaha, balse laanta labaad waxay si toos ah u khuseysaa xayawaanada. Okay, parasite ecology markaynu ka hadlayo, parasite ecology-ga waxa uu noqonayaa isagana inaynu barano goobta parasite-kaasi uu ku nool yahay ama dariska noolaha uu ku nool yahay, goobtaasi iyo qaabka uu la qabsado, mid beriga ku noolaa ama mid ku nool meelaha kululaa ma mid ku nool meelaha qabowga. waxyaabahaasi marka la baranayo waa parasite ecology. Okay, structural parasitology markaynu baranaynana parasite-yada nooca aynu ka hadlayno ha noqdo metazoa ha noqdo protozoa nooc uu yahayba qaab ahaan siduu u yaala. structure-kiisa marka laga hadlayo ma wuxuu leeyahay ciliatus ama flagella ayuu leeyahay, oo wuxuu leeyahay cell membrane ma thick wall ayuu leeyahay. waxyaabahaas oo dhan marka la baranayo marka waxaa loo yaqaanaa structural parasitology. anaga marka waxa aynu qaadan doono ama koorso inaynu ku saabsanaan doonto waa midaasi koowaad ama laanta koowaad ee loo yaqaano medical parasitology. waxaan filayaa in laamahana aad si fiican ila fahanteen. hadda aynu u gudubno marka qaybta xigta oo ah parasite-ka maxaa loo qaybiyaa. qaybaha loo qaybiyo parasite-ka ayaynu baran doonaa mawduuceena saddexaad. haddii aynu ka hadalno inta qaybood ama inta laamood ee loo qaybiyo parasite-ka guud ahaan waxa ay marka caafimaad ahaan ama medical parasitology ahaan aynu hadlayno ay isugu yimaadaan labada maxay yihiin? labada waxay noqon doonaan mid loo yaqaano medical parasitology iyo mid loo yaqaano medical helminthology. mid ay tahay in lagu barto keliya protozoa iyo mid ay tahay keliya in lagu barto metazoa oo ah helminthiski ama gooryaanadii. midka koowaad loo yaqaano medical parasitology-ga waxa uu yahay waa single celled parasite. waa parasite ka kooban hal unugle ama waxa uu leeyahay keliya hal unug ayuu ka kooban yahay. halka markaynu ka hadlayno midka labaad ee ah medical helminthology-ga uu isagana ka kooban yahay multicellular. waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin iyo waxyaabahaasi insha Allah midba midka kale waynu kala qaadi doonaa, waynu gudageli doonaa, balse hadda waxaynu si toos ah u kala qaybin doonaa parasite-kii anagoo u kala bixin doona metazoa iyo waxaynu u kala bixin doonaa protozoa groupka soo gala iyo metazoa groupka soo gala ayaynu hal mar iyagoo aasay diaphragm ah halkaan ku muujin doonaa. Okay, sida hadda aynu sheegnay oo kale parasite-ka waxaa loo qaybiyaa 2 qaybood oo kala ah. midda koowaad waxay noqon doontaa protozoa, midda labaadna waxay noqon doontaa metazoa. protozoa waxa uu qaybsami doona ama isagana oo soo hoosgali doona 4 qaybood oo kala ah. qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa sarcodona ama sarcodina iyo mastivora. qaybta saddexaad waxay noqon doontaa sporozoa. halka groupka afraad uu noqon doona ama kooxda afraad ay noqon doonto ciliata. waayahay metazoana waxaa u qaybsamay isagana 2 oo kala ah
nematohelminthes iyo waxaa loo kala qaybiyaa platyhelminthes. Nematohelminthes iyo waxaa loo qaybiyaa platyhelminthes. waayahay hadda waxaynu baranay marka jaantuskii guud ee ahaa parasitology classificationkeeda marka laga hadlayo in protozoa metazoa loo qaybiyo Stachyvora, Sarcodona iyo Sporozoa ciliata ay protozoa soo hoosgalaan, metazoana ay soo hoosgalaan nematohelminthes iyo platyhelminthes. waxaan filayaa qaybtan inay isla fahnay aynu u gudubno qaybta ugu dambaysa ama mawduuca ugu dambaysa ee casharkeenan maanta. qodobkeenan ugu dambeeya marka waxa uu noqon doonaa inaynu in badan ka hadalno ereyada la xiriira maadadani parasitology-ga. ereyada la xiriira waxay noqon doonaan ilaa ereyo iska badan ma waa ereyar mid waxay soo hoosgalaan life cycle-ka oo laba ah, trophozoite iyo cyst, halka labada kalena ay soo hoosgalaan iyagana marka laga hadlayo hostiga oo ay noqon doonaan definitive host iyo waxay kaloo noqon doonaan intermediate host. intaasi inta badan way soo noqnoqdaan kee intermediate ah, kee definitive host ah marka laga hadlayo life cycle-doodana trophozoite iyo cyst waxyaabaha soo noqnoqda ay ka mid yihiin. sidaas darteed ereyadani waa muhiim inaynu ku bilowno casharkeena si hadhow marka casharka qaybihiisa muhiimka aynu gudagalno aynu u fahanno qaybahaasi. okay aynu fiirino marka trophozoite iyo cyst maxay kala yihiin. trophozoite iyo cyst maxay kala yihiin. labadaba waxay soo hoosgalaan marka laga hadlayo qaybaha qaastan protozoa ay soo hoosgalaan marka laga hadlayo qaybihiisa life cycle-ka ama wareegtadiisa nololeed ayay soo hoosgalaan. wareegtadiisa nololeed marka qayb trophozoite ama qayb cyst lagu yiraahdo inaad kala fahmi kartid ayaa muhiim ah. trophozoite marka uu marayo waa qaybta uu yahay mid socon kara, wax soo saari kara, waana quudan kara. xaaladaasi marka uu ku jiro waxaa loo yaqaanaa trophozoite. marka aynu ka hadlayno cystna waxa uu noqon doonaa marka uu kaasi dhidkiisa yahay. dhidkiisa maxaan ku wadnaa waxa uu leeyahay ma lahan waxna ma quuto, waxna ma soo saaro, mid kalena waa non metabolizing oo dheefshiid ma sameeyo. hadduu wax cunayn dheefshiid ma sameeyo. okay waxa inoo haray marka labadooda haddana maxay kala duwan yihiin. midkani waxa uu leeyahay cell wall, halka midkani uu leeyahay thick wall oo ah derbi gidaar wareegsan ayuu leeyahay oo adag, halka midkani uu leeyahay cell membrane ayuu leeyahay. indhahana cell wall ma ahan, cell membrane ayuu leeyahay cafwan. labadani sidaas ayuu ku fahmay. waa ereyada inta badan soo laalaabta in badan aad ila fahantay ayaan filayaa. okay labada erey kale aynu ka hadlayno waxay noqon doontaa definite ama definitive host iyo ereyga kale loo yaqaano intermediate host iyo definitive host. waayahay definitive host waa maxay? definitive host iyo intermediate host maxay kala yihiin? labadaba horta waa laba martigeliye. martigeliyaha kale ah marka xaaladda ama marka laga hadlayo cycle-ka ama wareegga laga hadlayo protozoaha ama khaasatan even helmintology-ga kii daay wuxuu qaabilsanaa protozoa. metazoaha ama helmintology-ga markaynu ka hadlayno isagana wuxuu soo maraa life cycle-kiisa stage ay kala yihiin egg, larva iyo adult form. metazoahan wuxuu soo maraa xaaladda ah ama life cycle-kiisa marka laga hadlayo life cycle of metazoa, life cycle of metazoa marka laga hadlayo metazoa intaani ayuu u kala baxaa. halka life cycle-ka aynu ka hadlaynay hadday protozoana isagana intaani ay soo hoosgasho. macnaha maadaama u baahannahay inaynu ereyada la xiriira wax ka fahanno waxaa muhiim ah inaynu life cycle-doodana meesha ku caddayno, inaynu iska nidhaahno kan waayo iyo kan waayo. waxaa karoon inaynu meesha ku caddayno. okay life cycle of metazoa ama helmintology-ga marka la joogo waxa uu ka kooban yahay xaalad egg ah, ukun uu yahay, wuxuu soo noqonayaa ukuntii ku soo baxaya, wuxuu noqonayaa waxaynu dhihi karno sida aynu dhihi karno wallahu musta'aan sida tixriga oo kale. kadib wuxuu gudbi doonaa xaalad adult ah oo formkiisa la imaan doono. marka xaaladda marka uu ku jiro adult-ga waa wax xaaladda uu saameynta keeno, laakiin labadan xaaladood intermediate-ka ama waxa uu soo maraa marka uu yahay xaaladaha hore. tusaale ahaan markaynu joogno fiiri definitive host waa marka uu joogo marka xaaladan adult-ga uu joogo ama martigeliyihii loogu talagalay ha noqdo xayawaan ama ha noqdo bani aadam uu dhex joogo
halkaasi martigeliyaha loogu talagalay uu noqdo aadanihii ama uu noqdo xayawaankii marka uu dhex joogo uu infectionkiisa bilaabayo ama cudurkii uu dhalinayo waxaa loo yaqaanaa definitive host. Okay, intermediate host waa maxay? Waa marka uu ku jiro xaaladda larva marka wuxuu noqon doonaa wuxuu soo galayaa cycle-kii oo metazoaha ayuu soo galayaa laakiin infective ma wax ma saameyn karo. wuxuuna soo maraya marka xaaladani isagoo soo maraya marka factor waa maxay? Factor-ku waa xayawaanada kale tusaale ahaan xayawaanadani sida qanaacada oo kale walaa mustacaan geedkan loo yaqaan sandflies oo kale marka ay rabaan inay wax saameeyaan ayuu qayb ka yahay intermediate hostiga. iyaga marka uu ku dhex jiro ilma aragtidii ama uu ku dhex jiro parasite-kii ma ku keenayo wax oo saameyn ah balse marka uu geeyo definitive hostiga oo ah noolihii ama martigelihii loogu talagalay in uu saameeyo kadib ayuu bilaabayaa inuu saameyntii keeno. marka xaaladda intermediate marka uu ku jiro oo saameyn la'aanta yahay waxaa loo yaqaanaa intermediate host waxa uu ku jira xaaladda ama larva ama egg. Okay, marka aynu ku hadlayno xaaladda adult marka uu gaaro waa definitive hostiga noolihii loogu talagalay ayuu tagay saameyntiisa meesha ayuu ka keenay. Okay, waxaan filayaa inaad mawduucina maanta ama casharkeena kuwaad in badan aad ka fahanay. mawduucani waxa uu bilow u yahay mawduucyada ama casharada ku soo socda janalka kani aynu ku bixin doono maadadani parasitology-ga waliba waa full course insha Allah. waxaan rajeen doonaa in aad in badan ka faa'iideyn doontaan wax badanna insha Allah aad inala shaqeyn doontaan. عشان كان عشان حين نقول مدونه وحن في السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.